hogaanka SSC oo in muddo safar kala gadisan dalka dibadiisa uga maqnaaya maanta dib ugu soo laabtay magaalada Buuhoodle ee xarunta gobolka Cayn iyadoo laga hortagay meel hilaadii 7 kiiloomitir dhanka bari kaga beegan magaalada Buuhoodle ee xarunta gobolka Cayn halkaas oo ay ka soo galbiyeen boqolaal gaadiid oo isugu jira noocyada tiknikada iyo waliba noocyada kala gadisan ee gaadiidka waxaana loo soo galbiyay gudaha magaalada Buuhoodle ee xarunta gobolka Cayn soo dhaweyn kadib waxa uu hogaanku meel fagaara kaga hadlay shacabweynaha ka qayb qaadanaya soo dhaweynta hogaamiyaha waxa uu hogaanku si kulul uga hadlay in laga shaqeeyo arrimaha nabadda isla markaasna ay nabadda u baahan yihiin shacabweynaha ku dhaqan deegaanka Buuhoodle ee xarunta gobolka Cayn sidoo kale waxa uu hogaanku ka hadlay wada hadallada hadda ka hor dhexmaray madaxweynaha maamulka Soomaaliland Axmed Maxamuud Siilaanyo waxaana hadalladii hogaanka kamid ahaa Ramadan Kareem dhamaantiin marlabaadkana waxaan u mahad celinayaa shacabka reer Buuhoodle sida sharafta leh ee tuulimada la noogu soo dhaweeyay magaalada Buuhoodle aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa mas'uuliyiinta aad sheegteen saragnay dhamaantood waxaan ka wada hadalay danta iyo nabadgelyada sidii looga wada shaqeyn lahaa nabaddu waa muqaddas waana waajib danta noolaha iyo nabaddu ku jirta xabaddu xal ma colka warf ma lagu deeyay nabad in lagu wada noolaado cid walba danba ugu jirta taan ka wada hadalnayna waa taas in laga wada shaqeeyo loo baahan yahayna waa taas in ciidamada la kala qaado in dadka isku deegaanka aan kala maarmi karin la nabadeeyo in waxii maxaabiista la isdhaafsado la sidaayo in dadkani waa Soomaali meel la kala tagi maayaan wadada wada dhasho isku deegaana in nabad buuxda cid walba nabadda dantu ugu jirta la helo kulli aanu shakhsi ahaan mabdiyan baan aaminsanay waana ka shaqeynaya intaanu madaxda ku wada hadalay waana isku wada afkaranay dhamaantood in si nabada wixii dhiba jira lagu xalliyo in qolo waliba waa ka daashay xabaduna xal ma waa intaan ka wada hadalay waxa jira dad fara badan oo nabadda diidan colaadana aan wax ka tarin dad nabadana diidan colaadana aan waxba ka tarin baa jira kuwa waxaanu leenahay waxba la idinka weydiin maayo nabad reer Buuhoodle nabaddu ka goodaa sida colaadu uga goodo nabaduna iyaga uga goodaa waxa la yaala wixii xal ah nabad lagu gaarayo ama nabad lagu helayna waxa weeye waanu qaadaynaa waana soo dhaweynaynaa waana sameeynaa waana in laga gudbo weeye nabadda laga hortagayo ee marka la soo qaado laga gubanayo nabadda waynu u baahanaa beelaha dariskeenna ah baa u baahan wada hadlaalo heshiiye nabad yaanu ka wada hadalnay mas'uuliyiintaas iyana waa u diyaar cid nabad baryaysa ma jirto cid walba waa u baahan tahay aad iyo aad buu fiican yahay aad iyo aad baa dareenkiigu fiican yahay hogaamiyuhu kulamada uu galay ee uu xambaarsan yahay hadafka nabadda ayaanu aad iyo aad u taageeraynaa aad iyo aad baanu u soo dhaweynaynaa halganka dheer oo uu galayna waxaanu aaminsanahay oo aanu qabnaa inuu nabad ku raadiyay insha Allah ta'ala aad iyo aad baanu garab taaganahay soo dhaweyntan heerka qaran ee loo sameeyay hogaamiyaha maamulka SSC Dr. Salebaan Ciise Axmed Xagla Toosiye ayaa noqonaysa soo dhaweyntii u ballaadhnay abid ka dhacda magaalada Buuhoodle ee xarunta gobolka Cayn Cabdiweli Cabdixiis telefishinka caalamiga Universal TV Buuhoodle